وعبد الرزاق خليف أحمد جولاد عبد الرزاق خليف أحمد waxa uu ku dhashay magaalada Laascaanood sanadkii 1976 waxbarashadiisa hoosena wuxuu ku qaatay isla magaaladaas halka uu waxbarashadiisa sarna ku soo qaatay koonfurta Soomaaliya waxa uu sheegay in aanu ku shaqeyn wixii uu bartay isagoo u beeray dhanka ganacsiga gaarka ah maamulka iyo siyaasadda 20 sano ee u dhaxeeyay 1991 ilaa 2010 uu ku mashquulsanaa hawlahaas xukuumadii ugu horeysay ee madaxweyne Siiraanyo ayuu ka noqday sanadkii 2010 wasiirka ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska mar kale 2013 bishii toddobaad ayuu noqday wasiirka hawlaha guud iyo guryeynta ee Soomaaliland sanadkii 2015 waxa uu kamid ahaa tiro wasiiro oo iska casilay xukuumadii madaxweyne Axmed Maxamuud Siiraanyo isagoo markii dambana ku biiray xisbiga mucaaradka wadani sanadkii 2016 waxa uu noqday xogayaha maaliyadda ee xisbiga wadani sanadkii 2018 bishii saddexaad ayuu noqday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga wadani waxaana uu sanadkan kamid ahaa xildhibaanadii cusbaa ee loo doortay golaha baarlamaanka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta oo ay taariikhdu tahay 3 bishii 8 2021 waxa loo doortay gudoomiyaha golaha baarlamaanka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo ku guuleystay 42 cod halka xildhibaanka kale ee la tartamayay mudane Faraton uu isaguna helay 39 cod